أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول. أحزان قلبي لا تزول حتى أولنا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Welcome back again to Ashraf Academic Online. kusoo dhawaada Ashraf Academic Online. waxaa inoo socda asharadeeni taxana ahay maanta waxayna qaadan doonaa cashir kale oo aad u xiiso badan. bariyahan waan mashquulsanaa xogaho waa iska yar xanuunsanaa. haddii aan usoo laabano cashiradeena maanta waxayna qaadan doonaa lecture khudbo ayayna qaadan doonaa about ku saabsan the duty of the students waajibaadka ardayda. lecture waa khudbo about ku saabsan the duty of the students waajibaadka ardayda. haddii aan u guda galno gentlemen ladies marwooyin teachers macallimiin students ardayaal and other honorable guests iyo martida kaloo sharafta leh who have gathered here oo halkan iskugu yimid. I am greeting waxaan idigu salaamayaa the best and most precious salaanta ugu fiican uguna qaalisan with Islamic people ee dadka islaamka isku salaamaan. that is taasina waa peace of Allah be upon you. assalaamu calaykum. haddii aan kusoo celino gentlemen mudanayaal ladies marwooyin teachers macallimiin students ardayaal and other honorable guests iyo martida kaloo sharafta leh who have gathered here oo halkan iskugu yimid. I am greeting waxaan idinku salaamayaa the best and most precious salaanta ugu fiican uguna qaalisan with Islamic people ee dadka islaamka isku salaamaan. that is peace of Allah be upon you. taasina waa assalaamu calaykum. after greeting salaan kadib I wanted to suggest here waxaan rabaa inaan halkan ka soo jeediyo lecture khudbo about ku saabsan the duty of the students waajibaadka ardayda. after greeting salaanta kadib I wanted waxaan rabaa to suggest inaan soo jeediyo here halkan ka soo jeediyo lecture khudbo about ku saabsan the duty of the students waajibaadka ardayda. the student ardaygu must be different from waa inuu ka duganaadaa other people waa inuu ka duganaadaa dadka kale. the student ardayga must be different from waa inuu ka duganaadaa other people dadka kale at the side dhinaca of character dabeecadda experience khibradda and respecting xushmada. the student ardayga must be different from waa inuu ka duganaadaa other people dadka kale at the side dhinaca of character dabeecadda experience khibradda and respecting iyo xushmada. because maxaa yeelay the students ardayda of today ee maanta are the leaders of tomorrow waa hogaamiyayaasha biri. the students of today ardayda maanta are the leaders of tomorrow waa hogaamiyayaasha biri. as we know sidaan ognahay students ardayda learn something ee wax baranayo adka baranayo iskuulka so that sidaa daraadeed it is shameful waa ceeb the good student ardayga wanaagsan to refuse inuu diido or reject ama uu dafiro the order of the teacher amarka macalinka. aan kusoo celino because maxaa yeelay the students ardayda of today ee maanta are the leaders of tomorrow waa hogaamiyayaasha biri. as we know sidaan ognahay students ardayda learn something ee wax baranayo adka baranayo iskuulka so that sidaa daraadeed it is shameful waa ceeb the good student ardayga wanaagsan to refuse inuu diido. to refuse maxaa waaye inuu diido oo reject ama uu dafiro the order of the teacher amarka macalinka.
because maxaa yeelay the teacher macalinka is like waa sida your second father your second father macalinkaaga labaad aabahaaga labaad the teacher macalinka is like waa sida your second father aabahaaga labaad it is not good for you kuma wanaagsano it is not good for you kuma wanaagsano to custom inaad caadeysato to speak ama aad ku hadasho okay to custom inaad caadeysato to speak inaad ku hadasho in the galaaska completely gabi ahaanba okay because maxaa yeelay the teacher macalinka is like waa sida your second father aabahaaga labaad it is not good for you kuma wanaagsano to custom inaad caadeysato to speak inaad ku hadasho in the galaaska completely gabi ahaanba okay you can't be understand ma fahmi kartid the lesson cashirka you can't be understand ma fahmi kartid the lesson cashirka if the teacher macalinka explains it markuu sharaxayo if the teacher macalinka explains it haduu sharaxayo okay you can't be understand ma fahmi kartid the lesson cashirka if hadii the teacher macalinka explains it oo cashirka sharaxayo ma fahmi kartid that is conclusion of my lecture taasina waa gabagabada lecture-keyga ama khudbadeeda cheerio nabadgelyo okay hadii aan kusoo celino because maxaa yeelay the teacher macalinka is like your second father waa aabahaaga labaad is not good for you kuma wanaagsano to custom inaad caadeysato to speak inaad ku hadasho in the galaaska completely gabi ahaanba you can't be understand ma fahmi kartid the teacher the lesson cashirka if the teacher haduu macalinka explains oo sharxayo it cashirka that is the conclusion of my lecture taasina waa gabagabada ee khudbadeeda so cheerio nabadgelyo okay waxaan jecleystay topigaas inaan idin la wadaago waxaan idin leeyahay caafimaad ayaa idiga tagay intaan cashir kale oo xiiso badan ku kulmayno